وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، intaa kadib ilaahay baa mahad iskale. nimcooyin fara badan oo aan la tirin karin, la soo koobi karin, waaweyn nagu galladaystay. nimcooyinkaa faraha badan loo nagu galladaystay, nimcada ugu weyn waa inuu ilaahay islaam naga dhigay. islaamnimadaas oo fadli ilaahay ah, aanu ahayn wax awoodeenna, caqligeenna iyo garaadkeenna aan kula imaanay. markuu ilaahay islaam kaa dhigo, haddana gaar ahaan ilaahay ehl quraan uu kaa dhigo, dadka kitaabkiisa la nool, akhriya, barta, waqti ku bixiya, ku dadaala inay fahmaan. markuu ilaahay kaa dhigo, nimco weyn buu ilaahay kuu galay. sidaa awgeed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay suuratu faadir: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. kitaabkeenna waxaanu dhaxal siinay oonu siinay addoommadeenna kuwa aanu dooranay eenu xulanay. haddaba kitaabka ilaahay ee qiimaha badan ee ilaahay nagu galladaystay muxuu ka hadlayaa? arrimaha uu falanqaynayo, soo bandhigayo, uu noo faahfaahinayo maxay yihiin? qur-aanka ilaahay markii la fiiriyo wuxuu ku dul wareegayaa 4 arrimood, 4 mawaadiic iyo 4 cinwaan buu ku dul wareegayaa. mawduuca koowaad ee qur-aanku ka hadlayo waxaa weeye caqaa'id, waxyaalihii la rumayn lahaa: aliimaanu billah, aliimaanu bilyawmi alaakhir, aliimaanu bilkutub, aliimaanu birusul. wixii la rumayn lahaa buu qur-aan ka hadlaya. sababteed qur-aanku faatixa markii laga bilaabo ilaa birabinaas, waxyaalaha ugu badan uu falanqeeyo waa aliimaanu billah iyo aliimaanu bilyawmi alaakhir. kitaabka qur-aanka ana waxa loo soo dejiyey ee uu xambaarsan yahay waa caqaa'idda iyo waxyaalaha in la rumeeyo. marka arrinta koowaad oo qur-aanka ka hadlaya waxaa wixii la rumayn lahaa. labo, qur-aanka wuxuu ka hadlaa oo labaad arrimihii axkaamta, maxaa lagu dhaqmay. markaad ilaahay rumayso, qofka qalbigiisa iimaan baa gelayo, wuxuu leeyahay allahaas aad baratay eed weynaysay sideed u raaligelisaan. raaligelinta marka waa axkaamta qur-aanka ilaahay inoogu faahfaahiyey ee faraha badan wey. waa cinwaanka mawduuca labaad ee asaasiga oo qur-aanka ee uu ka hadlo. arrinka saddexaad ee qur-aanka ka hadlo waxaa weeye akhlaaq, dabeecado, dhaqamada wanaagsan buu soo bandhigay si loo qaato, loogu dhaqmo. dhaqamada xun buu alle inoo soo bandhigay si looga fogaado oo looga dheeraado. saawid alle wuxuu leeyahay: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. waxaad ahaateen dadka kuwii loo soo saaray. shaqada la qabana waa maxay? ta'muruna bilmacruuf. macruufku waa maxay? waa dhaqamada wanaagsan in dadka la faro wey. waxaasaa fiican, waxaasuu ilaahay jecel yahay. saawid qur-aanka waxaa aad ugu badan ilaahay tilmaamtaasu jecel: ina allaha yuxibu lmuxsiniin, ina allaha yuxibu lmutatahiriin. ba-aad qur-aanka ugu badan. marka iyo watanhawna cala almunkar. munkarka waa maxay? dhaqamada xunxun ee ilaahay uu ogolayn, ilaahay uu necab yahay baa dadka u cadaynaysaan, baa dadka ka reebaysaan. sidaa weeye, ilaahay ma ogolo, hebelow ka fogow baad leedihiin. marka arrinta saddexaad ee uu qur-aan ka hadlayo waa akhlaaqda iyo dabeecadaha iyo dhaqanka wanaagsan. qodobka afaraad ee qur-aanku ku dul wareegsanayo ee qur-aanka 4 meel markii loo qaybiyo meel dhan qaadanayso waa qisasul qur'aan. qur-aanka wuxuu soo bandhigayaa sheekooyin, qisaskaasoo 2 nooc iskugu jirta: qisas ambiyada laga sheekaynayo iyo dad aan ambiye ahayn oo qur-aanka laga warramayo.
haddaba qur-aankaas ilaahay uu inoogu soo bandhigaya qisaskaas hadafka laga leeyahay ma ahan yacni istimtaac in sheekada la macaansado lagu raaxaysto qofkii murugaysan loogu niyad dhiso ma aha hadafku waxaa weeye qisaskaa meesha loo keenay in cilmi lagala baxo in fikir laga qaato in dacwo ahaan loo dhuuxo in maxaa la odhan tarbiya ahaan dadka lagu tarbiyeyo lagu barbaariyo weeye mar walba qofka muslimka ee qur-aanka ilaahay akhrisanaya mar walba oo qur-aanka akhristo qisooyinka uu arko qisooyinka uu la noolaado hortiisa waxaa ka muuqanayso wuxuu ilaahay raali ka yahay waxa laga doonayay shaqada nolosha loo keenay ayuu qofka fahmayaa dadka ducaada ee khayrka xambaarsan ee ummadda indhaha u ah iyagana mar walba qisooyinka akhrisaan waxay u sii ziyaadinaysaa fiqa inay diinta ku kalsoonaadaan in mabaadida alla soo bandhigaya ay si fiican u dhuuxaan inay xaqa iyo wanaagga ay ku sugnaadaan inay baadilka ka hortagaan la hardamaan iska celiyaan baa kala baxayaan saaweed alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa tudici alkaafiriin qofyahoo muslimka ah kitaabka ilaahay akhrinayo gaal tala uu leeyahay marna ha qaadan waayo wax khayr iyo dan iyo wanaag uu kuu wado ma leh waxa uu kuu sheegayo waa xumaan uu kuu qurxinayo iyo inuu rabo inuu ilaahay kugu diro mar walba wuxuu kugula talinayaa siduu ilaahay kaaga caroon lahaa marka walaa tudici alkaafiriin buu ilaahay haddana waxaa layidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira xaqaa iyo qur-aankaas kula jihaad baa layidhi oo qofku marka uu cadowgii la dagaalamayo wuxuu u baahan yahay hub uu ku dagaalgalo cadow iskaga dhiciyo bihi baadaa waxaa layidhaha waa baa-ul isticaana oo macnaa waa maxay waa hubkii inaad kaalmaysan lahayd wey hubka waa maxay waa qur-aanka ilaahay wey gaal iyo muslim waxaa asal u ah inay cadaawad iyo loolan ay ka dhaxayso qolo walbana waxay u ordaysa u ruuleynaysa waxaa weeye waa in xaqa iyo mabda ay xambaarsan tahay qolo walba inay hirgeliso muslimiinta waxay u ordayaan inay kitaabka ilaahay hirgeliyaan gaalada waxay u ordayaan kitaabka ilaahay inay tirtiraan marka hubka marka la doonayo in lagu howlgalo waa kitaabkaas qur-aanka wey maanta muslimiinta dhib badan baa haysto xoolahoodii baa la dhacay dumarkoodii baa lagu cayaaray ilmahooda mustaqbalkoodii baa lagu cayaaray diintoodii baa lala dagaalamay hardanka iyo dagaalkaas ay ku jiraan in badan muslimiintii waa guuldarrayseen muslimiintii waa la jebiyey dhib badan baa taagan maxaa u waa maxay waa hubkii lagu dagaal tegi lahaa bay dayaceen oo iskaga tageen oo aysan qaadan marka qisaska marka qur-aanka markaynu akhrinayno aynu falanqaynayno aynu sordhigayno aynu ku tadabburayno macnaheedu waxaa weeye nebi walba noloshiisa intii uu dacwada u soo shaqeeyey qaabkii iyo cadowga oo la hardamay ayuu ilaahay noogu soo bandhigayaa saawgeed taxanayn maanta inoo bilaabanayo wuxuu salka ku hayaa inaan daraasayno dul istaagno qisaskii qur-aanka ilaahay ku soo arooray gaar ahaan qisaskii ambiyadii alla uu soo diray salawaatullaahi wasalaamu calayhim وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.